مرحبا هنا أخيان مرحبا محيالي وحي أوجي وحكوشرة موضوع أي كهلايان نفتر كيس أيو رباشا عمر إنه أدليشدو بو قوضنا وقسو أدليشدو لكن ما دونيان نينكاس عمل محل وسميلها محل كسمينا نينكاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا الدعوة ديال ما أنتم حنين وضع الفيديو أن دونيو إن نكبحيه في العلم أما رياكشن نكبحيه فيديو جاس وكول أما مكالمة وش عمر لسميه قال كلي هذا شينا جابوا يحس كيسه فيديو جاس أن دونينا إن في العلم كبحنا بربردقنا أن سمينا قال هذا kuwoodii horeeto ee joogay xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam joogay iyo kuwa hadda jooga iyo sida ay hal wada u haystaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay kitaabka qur-aanka kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu shaacirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qawmun taakhuun wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay sidaasi lamid ah sida adiga nabiga ay ku leeyihiin wuu waalan yahay waa saaxir waa falfallow iyo waxyaabahaasi ay kugu sheegayaan si la mid ah rusushii horena markay ummadahooda u imaadeen oo xaq u keeneen ayaa waxay dhihi jireen saaxirun aw majnuun oo ma imaanin kadalika ma ata alladina min qablihim sidaas si la mid ah oo ma imaanin kuwii ayaga ka horreeyay gaaladan quraysheed iyo gaaladan adiga lagu soo diray kuwii ka horreeyay min rasuulin wax rasuul oo ma imaanin ilaa hadduu rasuul u imaado waxay dhihi jireen qaal waxay dhihi jireen saaxirun aw majnuun markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi atawaasaw bihim isku dardaarmeen inay sidaa dhaheen ma dardaaran ay kala dhaxleenba bal hum qawmun taaquun iskaba dhaaf inay isku dardaarmaan iskumayna dardaarmin waa qowm xadgudbay weeyaan oo macsiyada iyo maaragtay xaqna ceebka ku xadgudbay kumanaan kunan oo saneetaa u dhexaysa qaarkood iskumaynan dardaarmin ee waxaa midaynhaya waa tuqyaanka gaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam loo soo diray ee xaqa inuu gaarsiiyo xilligiisa joogay ee quraysh iyo kuwii la halmaalay ahaa waxay dhaheen xaqa si aad oola dagaalantaan si kaloo loo hor istaagi kara ma jiree markuu muxamed uu xaqa dadka u sheegaya ama qur-aanka uu akhrinayo qayli iyo buuq ku fura waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aan walgaw fiihi lacalakum taqlibuun waxay dhaheen gaaladii qur-aanka ha dhegaysanin haddaad dhegaysataan wuu idinka dhaadhacaya xaqa si aad u diidi kartaan ama loo hor istaagi kara ma jiro dadka kaleetana hadday xaqa maqlaan way raacayaan ee waxaad samaysaan ila walqaw fiihi ku buuqa qaylo ku fura maxamed yaana la maqlin foori iyo sacab iyo qayli iyo meeshaasa waxan la imaada marka waxaa laga yaabaa inaad guulaysataan lacalakum taqlibuun inaad ka guulaysataan ayaa laga yaabaa sidaasi lamida gaalada hadda jooga waxay isticmaalaan si xaqa uunan dadka u maqlin waxa ay ku jiraan ee baatilka ahna aanan loo soo bandhigin khuraafaadka iyo xumaanta iyo masaska iyo qashinka dhex yaala muctaqadaadkoodii waxay aaminsan yihiinna aanan loo soo bandhigin waxay isticmaalaan qaacidada ah qaylo ku fura buuq ku fura waxaan daawaday videogan markaan daawadana aayadaas ay ugu soo dhacday waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aan walgaw fiihi lacalakum taqlibuun sheekh cumar baa wuxuu doonayaa buuggooda waxyaabo ku jira iyo maaragtay muctaqadaad khaldan iyo wax sumaysan oo ka buuxa inuu usoo bandhigo ayagana qaylo ayay ugu jawaabayaan marka dambena waxay leeyihin maanta oo dhan baad hadlaysa ayagoo hadalka u diiday balela daawada videoga aad iyo aad waa mahadsan tahay aad iyo aad raaliga ka ahay okay marka koowaad waa idin salaamayaa shina gaabow iyo shacni labadiina waan idin salaamayaa mawduuca oo maanta ka hadloosiin waa mawduuc aad u fiican weeyaan marka waxaan jeclaystay in oo tacliiq ka bixiyo runtii ahaan kufsiga aad buu u xun yahay marka meelo badan ayaa maaragtay kitaabka ku qoran in oo kufsiga maaragtay arrin inuu xun yahay marka waxaa jeclaan lahaa maaragtay idinkoo raali ah shiina gaabow
وحربي ماتايوس مارتي عتب كلباتن إيكو فيرس كالصدن إيكو آيات أو مع من تجد هل مرمنو آخرين كتدور عليها إن هرتا ma rabaan inay akhriyaan ma rabaan maxaa yeelay waxay ogyihiin waxa ku jira mawduuca ay ka hadlayaan naftirkiisa ayuu rabaa Sheekh Umar inuu u daliishado buugoodana uga soo daliishado laakiin ma doonayaan waxay ku furayaan marka qayli iyo buuq baliidaligiis gabadhaada ma rabtaa in la kufsado sideen ma rabtaa inaan sameeyo ma rabna inaan quraan akhrino inaan kan akhrino hadhowna asaga ay taagi doonaan bal aad iyo aad u fiirso وكسر هذا الشيء عمر موضوع عاد كهالليسان أدوية هي إني مارت لجا هالله جرائمته إيو دبيده إيو فلالك حن الولك هي عرورته إيو مارت دتك الدنيرته هي دتك تبتير الولك هي موضوع عسين موضوع في عينه وبكسر بالله هذا الكلام بكسر بالله موضوع في عمبات كهالليسان توبك في عمبات كهالليسان بسوي هذا سي توبك اللاسي دحقله حربا إنه وآخريان لكن وحروقي waxa ku jira meesha waxa ku jira marka mar rabaan buuq bay marka furahayaan ya qaylo walghaw fihi la'allakum taqlibun ila dhigis marka waxyaabaha uu soo qadanayaan anagana waxa bini'aadan ahay bini'aadan haddaan tahayna waxa wanaagsan in aan u dhigno qofka kale oo bini'aadanka ah caruurtani waa caruurtana mustaqbalka annaga waxaan u doodaynaa ma aha diine caruurta kuweyna ma aha laakiin kuweyna oo kale waa dadkeena waa Soomaaliya dhashay marka ha u malaynin anagana duulaan ku nahay diin ama duulaan aan ku nahay cid kale waxaan duulaan ku nahay dadka xumaanta samaynayo hadda xumaanta la sameeyaa raalli ma ka tahay caruurta la qabto horta fursad u siinaysiin wax yar inaa hadlaa rabay maartay idinkoo ale maanta dhan baa hadlaysa kulada sheekh wuxuu yiri fursad ma siinaysan aan hadle maanta dhan baa hadlaysay maanta dhan waxa hadlay waa ninkeeda ayadii baa maartay waxay leedahay maanta dhan baa hadlaysay wixii oo dhan marka waxa weeye waa board isku kicin iyo siigi isku kicin weey ما يقف مرتي عقل لإنه ضاها مرتي وبغى هاي مرتي أرنتان قف كستو عد كستو ما أقول مرتي إن لقف صدا مرتي ضاها عرور تياريات إن لقف صدا كل وضوء ما كان والله ما كان مرتي sababta maartay isoo su'aashan waxay u weydiinaysaa way taqaanaa Sheekh Umar isnaantan Shiina Gaabo Sheekh Umar way taqaanaa intaas oo jeer buu maartay soo bandhigay khaladaadka diintan gaalnimada ay haystaan bal maxaa khalad yani waa attack weeyaan ma muslim baa tahay ma diin la'aan baa tahay ma kristan baa tahay waa bood isku kicinti weey wal qawfihi waa أتاجو سين فرصة من سين سين مركا هذا نضع مرتين مسيحي مركا فرصة ما سين سين ما يدري وح سوق هذا فيرس أو كتاب أو
waxaa sidan uu yahay jihaadkaaga meel kale ka sii war jihaad maaha fiiri ma waxaa ka duubatay inaa ku dhahay mataayas fur intaas ka gudbeen fiiri maya fiiri lix jir ma ahe maaragtay waaba cay caadi ah waa tabankaas weeyaan markiiba waxay bilaabeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay caayaan marka walqow fiihi lacalakum taqlibuun waay hadana telefonka ku jari doonaan maryama marka dadkaani waa u jeediyey waa lagu dambeeyey telefoonka fursad ma isiinin virus baa dhahay maaragtay akhri way carareen kulligiina waa daawanoosin marka waxay soo qaadatay nabiga sala allahu calayhi wasalam guurkiisii oo maaragtay guursaday caaisha ridwaanullaahi calayha marka waa ka faa'iidaysanaya maaragtay live ku jiraa hadda waxaa maaragtay qoladaani shubhada oo mar kasta maaragtay ay la imaanayaan horta marka koowaad qoladaani war khayr laasi sheekh cumar wixii intaa ka dambeeyay wuxuu gelahayaa inuu ka jawaabo shubhadaasi ay mar kasta la ordaan meelaha oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa gabar yar guursaday wuxuuna doonayaa inuu kasoo bixiyo buwaagtooda qisadana si dhaba uu uga hadlo khayr laasiyo videoga wuxuu ku jiraa youtube-ka ilaalada islaamka waad u dooran kartaan linkigana waan soo dhigahaya laakiin waxaan rabay inaan muujiyo oo aan idinla wadaago gaaladu alkufru millatun waaxida gaaladu waa un hal diin ah weeyaan gaalnimadu waa hal diin ah waxa ay isku difaaci karaanna waa hal wax waa qaylo iyo buuq iyo cay iyo wixii lamid ah aduguba ila daawo wixii aad kaaga soo baxana commentiga iigu reeb aad baad umahadsantihiin waxaan leeyahay maalintu aynii wacnaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.